هذه الدنيا غريبة كل ما فيها بكاء انت لاقينا بكينا وانت فارقنا بكاء. waqtigii nabi maxamed joogay naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aadee dad baa dhacdhacan iyo dhaqaqlanimadan iyo afxumadan ay ka dhici jirtay noocyo kala duwan leh. marka haddii aynu iyagana qisaskoodii soo qaadano 5 qiso aynu soo qaadan doonaa. qisada ugu horeysa waa qisadii ninkii la oran jiray Kacb ibn al-Ashraf. nin kibray buu ahaa carabta kamid ah, mar walba wax kibra oo ilaahay rasuulka ka hor yimaada lama waayo. ninka isaga ahay nabigu afka ka dhigi waayay calayhi salaatu wasalaam, aad buu caayi jiray rasuulku sallallahu alayhi wasallam. asxaabtii wala hadlayo wuxuu warnaa ninka saa lagu sii eegan kari maayo ilaahay rasuulka caaye kuma u baxaya. nin ku munaasib ahaa, geesi ahaa, fariid ahaa, farsamo badnaa Maxamed ibn Maslama la yiri. Maxamed ibn Maslama la oran jiray asxaabiga ayaa yiri aniga miyaan soo dilaa ha aniga igu ducee buurka aniga ku quusanaya. kadibna laakiin daa wuxuu waxaan u baahanahay waxyaabaan ku marmarsoodo. waxaad ii ogolaataa buur in adiga wax ka sheego si aan isaga kalsooni uga kasban karo. waa farsamo oo macnaha aan dadku yara duri karo wax ka sheegi karo. waayo ka socod waa ku fasaxay kala day xidaaraysi iyo farsamo u tahay. ninkii uu sii socday istiqaanan maxamed ibn Maslama iyo ninka gaalka Kacb ibn al-Ashraf looran jirayna way istiqaaneen. ninkii uu tagay kadibna wuxuu warnay ninkii oday ninkii aanu la joognay wuxuuna weydiinaya sadaqa iyo wax anagina waxba ma hayno. marka waxaan kuugu imi bal inaad xoogaa awr ama 2 awr oo raashina ama hayso. uu qoslay wuxuu ma sidaas u dhacday waan ogahay buuri ka waliba uu disi cuslayn doonaa buuri way ka sii daray buuri waliba. horta dee arrinkiisaanu yara eegaynaayo dee ilaa intuu soo oodmayo waanu iskala sii wadaynaa waxba ka degdegi maynee dabata teenan inoo dhammee. dee waayo rahan baan kaa doonayaa buuri kalsooni. maxaa rahan kaaga dhignaa buuri dee qaar dumara ii keen buuri. waa ninkii bray wey dumarkiina dee qaar rahan iiga dhig. waxaan meesha ninkii carab u fiicnaa baa tahay ceeb bay kugu tahay islaam buu ayuu rahan u haystaa taa inaga dah. waayo haddaba caruurta keen buuri qaar caruura keen labadaa awra raashinka ah aan rahan u sii haysto. taasina waa dee caruurta ceeb ku tahay buuri oo waxaa la odhan doonaa berrito waa ilmihii loo rahmay 2 awra raashinka ah. marka taana inaga dah. maxaad haddaa rahan ka dhigay hub baan kuu keeni buuri. hubkaasaa wanaagsane ma hubba hubka ii keen buuri asilaax goormaynu ballanaayo caawa haynoo haatay buuri. caawadii buu soo guuro galay isagoo wata nin kale oo si uu kalsoonidiisa u sii hagaajiyo si uu kalsoonaado. ay isaga xagga hooyo kan la doonayo in la dilo xagga hooyo ay ka walaala yihiin Abu Naila la oranay iyo 2 nin oo kale inay saaxiib yihiin oo muujinayo. hubkan uu u muujinayo inuu rahan uga dhigayaana waa hubkii ay ku dilayeen. way soo socdeen habeennimadii baa qalkii ku garaaco waa kuma waa Maxamed ibn Maslam. ooridiisii baa ninkan gaalka la hadasho waxay tiri war waqtiga lama baxee iska joog. wuxuu leeyahay waa ninkii odayga ahaa istiqaanay yimid Maxamed ibn Maslama la oran jiray deegaansigu hadda ayo kale uu iska daadega wala hawla tumaatiye gobanimo ma hayna dee aqalkuun hoosta ka soo xidhata. wallahi codkaaga geeri baan ka arkayaa bayt gabar cajiiba bay haydo codkaagaas geeri baa iga muuqata. sidii uu ku daadagayo dee Maxamedna khad buu soo dajiyay qoladan la socoto wuxuu ninka saasan sameeynaya marka aan ku dhaga uun khaarajiye. ninkii aad isu soo cadareeyay oo aad u soo kankamayo udgoon oo markaasuu Maxamed ku warday aad baad udgoon tahay bal madaxaaga aan yara ursado. allah maxaa cadar ka soo uraya asuu dee carabtii cajaayibsanayd baan qabaayo oridii carab ugu cajaayibsanayd ugu cadar badnayd baan qabaa. sidaa daraadeed baan udgoonkan u helay. bal ursi madaxa markuu ku dhagay mar labaad haddana aad u qabtay madaxiisa intuu saa ursaday ayay nimankii kale ag taagnaan hubkii looga dhigayay rahan uu yahay ayaa dhakada lagu jaray. warkiisii uu dhamaaday saasay nabiga ugu bashaareeyeen calayhi salaatu wasalaam. marka ninka ciqaabtiisii nabigu wuxuu ka dhigay in uu wadada ka duwo ama ummadda
ka hor qaada